Bismillah, maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan. Ku soo dhawow videogeena maanta uu kuu soo diyaariyey anigoo ah Cali Maxamed Usba Cali Baashi. Insha Allah videogeena maanta waxaa kusoo qaadan doonaa sida PowerPoint-ga loogu bedelo PDF. Okay, waxaa isku dayi doonaa in aan isticmaalno 3 dariiqadood oo kala duwan oo markaas PowerPoint-ga ugu bedeli karno PDF. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena YouTube-ka Ali Ase Online ama aad ku cusub tahay Facebook page-keena ay ka baro, fadlan soo dhawow ee nagu taageer, like, subscribe iyo share intaba dhinacaada waa free. Anakana waxay noo tahay runtii dhiirigelin si aan usoo diyaarino videoyaal kale oo aad iyo aad u tayo fiican. Ka hor intaanan PowerPoint-geena u bedelin PDF, waxaa muhiim in aad xasuusino mar kasta oo aad PowerPoint u bedelayso PDF in aad weyn karto waxyaabaha qaar ama macluumaadka qaar sida animation-ka, transition, comment, speaker note, sound, video, waxyaabahaas oo dhan haddii aad PowerPoint PDF u bedesho waa weyn doontaa. Waxa ula jeedo waa kusoo laaban doona insha Allah. Ka hor intaanan PowerPoint-gan u bedelin PDF, u fiirso waxaa haysanaa 5 slide. Wuxuu ka kooban yahay slide 1 ilaa 5. Mid kasta waxaa dhinaciisa bidix kaga yaal xidig, macnaheedu waxay tahay faylashan transition iyo animation ayaa ku dhex jiro. Okay, sidoo kale qaybta hoose waxaa ku qoran speaker note ama qofka presentationka markaas soo jeedinaya. Qaybtan hoose waxaa ku qoray note. Si aan u fiirino waxaa taabanayna note ayaa furaynaa. Markaa furto u fiirso qaybtan hoose qoraal oo dummy ayaa ku yaal, waa text maahan, wax la akhrin karo maahan, waa tijaabo kaliya. Okay, qaybtaas hoose waxaa noo yaal text ama speaker note, qofka markaas presentationka soo jeedinaya qoraalku akhrin lahaa. Okay, marka waa iska xiraynaa. Sidoo kale isla PDF slide-kan wuxuu leeyahay comment ayaa la socda. U fiirso hadda page-kan comment ma lahan. Haddii aad tago slide-ka labaad, no comment. Slide-ka koowaad, there's no comment. Okay, haddii aad rabto inaad comment ku daro, halkaas ayaa kaga darayaa paste. Okay, hadda slide-kan wuxuu wataa comment. Okay, markaa fiiriso comment ayaa la socda. All right, u fiirso sidoo kale wuxuu leeyahay animation. Aan isku dayno in aan fiirino sida uu egyahay PowerPoint-gan. Waa mid iska tijaabo ah, ma aha wax aniga maaragtay soo diyaariyey. Waa slide-yaal hore u diyaarsanaa markaas. Presentation view, u fiirso slide-yada kala duwan markaa u dhaqaaqo. U fiirso siday kusoo galaan animation, waxaasoo dhan way wataan. Sidoo kale u fiirso transition ayaa ku jiro. Slide-yada intaas ay kooban yihiin. Exit taabo waa ka baxnay. Okay, dariiqada ugu horeysa oo aan markaas PowerPoint ugu bedelayno PDF waxay tahay inaad tagno marka hore file, waxaad teginaa markaas save as. Haddii aad isticmaalisid Windows sidoo kale waxaad taaban kartaa save as. Markaa furno save as, waxaan algeenayaa qaybta dambe ee backstage-ka oo markaas aad kaga bedeli karno magaca, booska aad ku kaydin lahayn computerkeena ama aad daarno online-ka iyo file format. File format-ka waa ujeedada videoga maanta u soo galnay. PowerPoint-ga wuxuu ku kaydsan yahay ama lagu soo diyaariyey PPTX file formatkiisa. Waxaan rabnaa inaan u bedelno PDF. Okay, kadib waxaan taabanaynaa export. U fiirso meeshaa geyn hadda download ayaa geynay. 5 slide waa la soo daabacay oo waxaa loo bedelay markaas PDF. Sida soo sheegnay wixii comment, animation, transition iyo waxaas oo dhan ma la soo qaadan doono oo waa laga jaraya markaas. U fiirso PDF-keena waa kana sidaas ay u muuqdaa. Markaad taabto next slide, wixii oo dhan hal mar ayaa lagu siinayaa. wax maaragtay animation iyo transition intaba ma helaysid. Naga xir. Okay, dariiqada labaad oo aan markaas u kaydin karno ama PowerPoint ugu bedeli karno PDF waxay tahay in aad tagno file, kadib waxaad teginaa export. 3 dhibic ayaa la socoto, macnaheedu waxay tahay waa la sii furi karaa gudaheeda. Markaa furno export, waxaa imaanaynaa file format, PDF miyaa rabtaa, MOV, JPEG, file ama formaatyo kala duwan ayaa u bedeli kartaa export. Waxaa kuu soo baxaya qaabab ka badan ama formaatyo ka badan markii hore ama save as-ka wixii hore aad haystay kuwa ka badan ayaa helaysaa. Okay, haddaad rabto video inaad u bedesho oo YouTube-ka soo geliso, ayadana video kale ayaa kasoo samayn doonaa. meeshaas ayaa laga doortaa. Hadda waxaan rabnaa PDF, downloads ayaa geeyey, isla magacii. U fiirso export markaad taabto fileka hore ayuu u yaalay. Waxaa la leeyahay kii hore ayaa haystay, ma rabtaa inaad ku dul qorto ama aad bedesho. Yes, replace. waa bedelay. Markaa fiiriyo isla fileki markaa furo waa isla sidii ayuu markaas soo muuqdaa. wax cusub oo kusoo kordhay ma laha, sababtoo ah wax kasta animationka haddii uu cod jiri lahaa ama video waxaasoo dhan waa laga soo tagay.
dariiqada ugu dambeysa oo u bedeli karno PowerPoint-ka PDF waxay tahay in aan tagno file, kadib waxaad tegaynaa print, inaad soo daabacay sidoo kale. Markaa print tagto kadib waxaad tegaysaa PDF, save as PDF. Okay. Markaad tagto kadib waxaa ka dooran kartaa ama magacaa ka bedelaysaa qofka soo saaray keyword area oo maaragtay aad ku raadin karto. waxaas dhan ma sii gali doona hadda. Magaca haddaa rabto ku diyo sidiisa hore. Okay, kadib waxaad tabanaysaa save. Mar kale na la weydiiyey filekan hore u keydisay ma rabtaa inaad bedesho yes ama replace. haddaa rabto magaca haddaa ka bedelo mar kale ma la weydiinayo ama ma la weydiin lahayn qoraalkii ugu dambeeyay hadda. Okay, markaa fiiriso haddana isla filekii aan furno waa sidiis. Okay, muhiimadda PowerPoint-ga PDF loogu bedelayo waxay tahay kow maaragtay fileka sizekiisa ama cabirkiisa uu ka yar yahay fileka markuu yahay PowerPoint. haddii aan fiirino hadda u fiirso PDF-ka waa 2 megapixels halka maaragtay oo PowerPoint-ka yahay 3.7. u fiirso waa 5 slide oo keliya oo qoraalo yar ay ku jiraan. haddii ay videoyaal ama sawirro badan ay kusii jiri lahayn cabirka PowerPoint-ga wuu kasii adkaan lahaa ama wuu kasii weynaan lahaa. sidaas darteed waxaa kugu adkaan karta markaas inaad dadka la wadaagto ama spaceka computerkaaga ama memory cardkaaga uu kugu yaraado markaas. videogeena maanta waan kusoo qaadanay 3 dariiqadood oo kala duwan oo aan markaas PowerPoint ugu bedeli karno PDF. intaas ayaa kusoo koobana insha allahu. waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysteen. fadlan nagu taageer, like, subscribe iyo share. run ahaantii waxaynu tahay dhiirigelin si usoo diyaarino videoyaal kaloo aad iyo aad u fiican. waana mahadsan tahay. waxaa inoo balan insha allahu video kale.